deegaanka Jaara Horote oo ka tirsan degmada Dila ayaa ah deegaankii ay ka soo farcantay magaalada Boorama. Deegaankan ayaa Boorama u jira 26 kiiloomitir halka Dila uu jiro 7 kiiloomitir. Deegaankan ayaa waxa ku yaala ceelasha cadcad oo ah ceelal aan biyahoodu dhamaanin. deegaanka Jaara Horote ayaa gumaystii Ingiriisku doonayay inuu ka dhiso jaamacadda Geeska Afrika oo hadda ku taala dalka Suudaan ayaa waxa hor joogsaday dadka deegaankaasi oo ku adkaa diinta Islaamka isla markaana aaminsanaa in la gaaleynayo. deegaanka Jaara Horote ayaa waxa uu ahaa deegaanadii ugu horeeyay dhulka Somaliland marka la yiraahdo wax beerista. deegaankan ayaa waxa ku yar adeegyada aasaasiga sida waxbarashada, caafimaadka iyo biyaha. mar haddaba shabakada caalamiga ee Boorama News ay booqatay deegaankaasi Jaara Horote ayaan guud ahaanba deegaankaasi ma laha xarun caafimaad balse waxaa jira meel yar oo qofku marka uu xanuunsado dawo laga siiyo. xagga waxbarashada deegaanka Jaara Horote waxa ku yaala dugsi hoose dhexe oo iska wax u qabso lagu dhisay sanadii 1962 waxaana dugsigaasi ka aflaxay dad aad u tiro badan kuwaasoo ku kala nool daafaha dunida isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumadihii Soomaaliya iyo Somaliland oo aan dib u soo eegin deegaankaasi. xagga biyaha deegaankan ayaa biyaha ka cabi jiray balaygii ayaa waxaa jabiyay roobab xoogan oo ka dhacay khasaarana u geystay dalagii beeraha. dadka deegaanka oo la hadlaya Boorama News ayaa sheegay inaanay aragba xukuumadda Somaliland balse ay sheegtaan waxaanay ka dalbadeen xukuumadda iyo qurba joogta deegaankaasi inay wax ka qabtaan baahiyaha deegaankaasi. dadka deegaankaasi oo hadlaya waxa kamid ahaa hadaladoodii. أنا وعلى أحمد بركة الله دنيا شرفت وحنو شيء عارف دولة سوماليلاند ودرك السين مصيبة راسي طول يوم هاسبا قرب ده بيها مركا أي أول شوية مركا بيحسبه هاكي وصلنا قرب وخدي توش أنا قرب وخدي ومصيبة دبادية وحنتعلو حنا ما هانو تكرر باديها يلا بس هايستان هاي ودرك السين كها بيرتالي afar bacoodo waa weyn bisoo iyo wuxuu biyees kaga dhigo afartii wadadkii baqay ugu horeey marka sidaas aanu itaal ugu helay cidna oogina ma jirto wali inta halka aan joogno anigu 5 sano ayaan gudoomiyaha 5 sano waxa hay'ada amba wax wasaarada oo gobolka intay ka socotay timida halkaas ma jirto mana ay arag markaan meelaha ugu baaqneen magaalooyinka tagnaan ruuxaasa masiibadaasaan ugu dhacday cidba warnaga ma qaado aragti maanta wata waan dhex joognaa waynaga arkaya laagta halkaas laag bay noqotay halkaas wata beertii baabiisay biyihii waa ku halkaas ka dhaceen garbi kala hoosta ah waxa la naga soo gaaro dawladda Somaliland iyo wasaaradda beeraha naga soo gaadho ha aragto wasaaradda biyaha iyo tabeero ha arkaan meeshaan joogno Jaara Horote baahida ugu horeysa waxa weeye caafimaadkaasi MCH maanta ma hayno in badan waan raadinay waliista Ilaahay nooma suuragelin waxa ka codsanaa MCH ka in award u helna halkaasi way haweenku noogu umulaan oo ubadka maatada yaryareen magaalooyinka baabuurta ugu soo kareysana aan baahidaasi ay naga daboolaan inta dibadda joogta iyo inta dalka joogta ee wax ku haysan waxaan ka codsanaa inay taageeradaasi nala garab joogsadaan annaguna waxa itaalkayga nagu qayba waan ka qayb qaadanana waan qaybteeda waan ka qaadanaa annaguna اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم magacaaga saddexna عثمان أو محمد آره توقع Jaara Horote إلهي بما هذا صنعتي waxaan idinku mahadinaynaa dhalinyarada deegaanka u dhalatay oo maanta danta deegaanka u timi oo maanta horteedna aan arag wixii ka dhashay maanta horteed aan arag baan iyagana ugu mahadcelinaynaa baahidayadu MCH baan noo koowa aad iyo aad baan ugu baahanahay habeen dhaweyd wiil yar oo dhashay baa halkan ku dhiig baxay 2
labadii habeenimo Boorama loola orday dirqi baa naf lagaga gaadhay intii ku horeysayna sidaa iyo si ka badan dumarka umusha iyo carruurtu iyo waayeelku aad iyo aad bay ugu baahan yihiin inay dawo iyo fuuq celin halkan agtooda ka helaan waana meesha ballaaran la yaqaano MCH kaasaa noogu baahi adag in la noo dedejiyo ilaahay idinkii waad noo soo helaysaan inaad noo doontaan waan 62 ayaa iskuulka hays caawsa lagu dhisay jaarha horto inamadii maalintaa ka baxay maanta dadkoodii ay iyaguna dhaleen waa dad waaweyn oo shaqaaloobay maalintii baa noogu dambaysay waxaanu ka codsanaynaa sidaa ay imika yihiin inay bedelaan cid waliba meeshii ay ka dhalatay wixii ay u qaban karto Soomaalida kalena ha u qabatee laakiin inay naga qayb galiyaan waxa ay dadka kaleba u qabanayaan waxba kama hayne waxaanu ka codsanaynaa inay dadka nagu daranayo arkaya wixii la isku sheegay iyo wixii la arkaa waa kala laba waxaan leenahay haddii masiibadaasi xagga bariga ka dhacdo dawladdu kama warqi weydeen annaga ciddii war naga qaadi lahayd waxbaa ka siiya ilibana waa goofkeeda budunto waxaanu ka codsanaynaa waxa iyo wax la mid ah ayaan haysta wataasoo beerihii waa laga guurayaa kuwa hoose way baabaasan yihiin kuwa dushu way baabaasan yihiin waxa lagu iibaan qabay haddaan dawlad la ahayn laakiin haddii dawlad la noqday waxa la moodayay in baahiyaha caynkana ay ku qaybto ama tilmaan ha ka bixiso ama adin waxa kaga qabato hay'adaha samafalka oo ay noogu qaylin lahayd way ka gaabisay Allahi wa barakatuh aniga magacayga waxa la dhahaa madiiri duqayda waxa jaaranta kamid ah dhibaataha qof aad u sheegato aad arkayso iyo dhibaatahaaga aad u sheegataa iyaguna indhahooga ku arkaan kolkaan ciidiba ku iiman dhibaato waxa la waxad qabto dawladina kuma oga hay'adina kuma oga sidaasaanu dhexda u fadhinaa haddii maanta alla idin keeno ood indhihiina ku aragtiin waxaad yeeshaa dooxa jaarha horoto u qayla tag noo qayla tag hadday hay'ad tahay iyo hadday dawladda Soomaaliland ee magaceeda la lagu sheegayo weli qola socoto oo maxaa idin darana tiraahdo maarag waxaan u malaynayaa inaanu sheegano kol haddaan noo imanahayn maana sheegano waxa weeye anu waxaan leenahay waar hadday dawlad tahay iyo hadday tahay hay'ad iyo hadday tahay inaan qurba joogaba halna arko baahidayada hal arko haddii ay biyo la'aan aanu maanta taaganahay haddii aanu taaganahay caafimaad darro aanu taaganahay haddii aanu taaganahay waxaad yeeshaa sareecadii oo kal hore iyo maantaba naga baaday oo ninna maanta wax alla wuxuu wax ku soo iibsado aan ahayn tiyo maanta neefka iyaga aan la iibsanayn yaa waxa weeyaan maanta aad iyo aad bay arrintu noogu adag tahay waxaan ku soo gunaanaday hadday hay'ad tahay iyo hadday dawlad tahay iyo hadday walaal annaga dibadda noogu maqan yihiinba dooxa jaarha horta maanta dhib aad u qaba dee hala noo soo gurmado waxa la yidhaahdaa xaamid xuseen sarreeye waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka jaarha horto waad mahadsantihiin horta walaalihiina na soo booqday ee iyagu isa soo xilqaamay iskuud annagoo sidaa ogol una dhashay dadkii ay yihiin beeshan jaarha horto intan muuqaton maaho jaarha horto waxay u qaybsan tahay laba beeraley iyo xoolo dhaqato oo xaggan beeralayda ah kow
beeralaydii waan arkaynaa waa intaa isku muuqata laakiin waxaa jira dad ay leedahay jaarahoroto oo maaragtay dibro wixii ka soo sarreeya jaarahoroto lagu magacaaba halka maaragtay ay yimaadaanna waa halka saracoogu yahayna waa halkan dadkaasi intaa leegi oo intan jaarahortoma ka sii badanay way ku baaba'san yihiin xaggan caafimaad awgeed caafimaad la-aan iyay ku baaba'san yihiin halkanna waaban aragnaaba marka dawladduna waxaad yar moodaa inay laamaydun cararto oonay maaragtay dhulka yar leexsan dee cid wax jiraa mooyaane ana cid kale ana waddadaa un oo warbixinteeda waan haynaa jaarahortiya dhulkaayo waanu marra una yidhaahdaa ya koley dee tuli marayaan ba yidhaahdaa jaarahortuna waanu marra waa iska tahay mana aragno kow waxaa kaloo nidhi waxbarashada oo nu maaragtay aada uga cadilanahay waayo iskuulkan jaarahortiyo iskuulka dilaad wax yar bay kala horreeyeen kana iskaabaa lagu dhisay kaana ingiriiska baa dhisay waana 2 beelood oo isku miisaaman markii horena waxaa la yidhi secondary-ga meel dhexe ha laga dhigo siiba meel tulida iyo dila udhexayso oo halkan dhexa ah si jaarahortana xaggaa uga baxdo xaggaana lagaga yimaada xaggaana iskuulkii wuxuu naga tegey ya dacwaley soo maad garan annagu waxaabaan u baahnayba iskuul secondary-a oo dheya oo beesha bariga boorama ya ay soo gasho ummadda aniga waxaa la yidhahdaa cabdullaahi guuleed kaahin beertanaan leehay anigu ilaa inta ka sokaysa beertii waa taasoo waan ka guurayade geedi baan ku jira mar labaad ballaygan waxyeeladiisa ayaa kow ka ah wax yeelada nabaadguurka uu keeno wey meesha nabaadguurka haddii la qaban kari waayo dee itaal aan ku qabanana mahayna anagu way naga xoog ron tahay shaksi ahaan iyo ummad ahaan labadaba way naga xoog ron tahay dawladda somalilan waxaan ka codsanayna iyo hay-adaha samafalka intaba waxaan ka codsanaynaa inay dhibtaa nabaadguurku keenay ballaygaasina kow ka yahay inay wax nagala qabato geedi waxay ku faarantaa bariga boorama iyo gebli iyo galbeedka hargeysa wax qabadkeega intaan arkayay muddo 6 sanaa joogaano wax qabadkeegu aad iyo aad buu liitaa ma arko iyadoo dawlad oo xukuumada soo baahida dadka dadweynaha iyo wax soo saarka wadanka waxa ka soo baxa maanta adduunyada maanta tiknoolajiyada iyo casri bay ku shaqeynaysaa iyo horumar maanta tiknoolajiyada iyadoo ay ku faanaysaa waxa weeye 1900 iyo eberkii aabahay wuxuu qodi jiray dhulka qodi jiray la qotaa wax kale oo casri ah ku soo biiray ma jiro wixii tii hore ay qabatay hoos bay uga dhacday ma beerihii iyo ballayadii iyo dhulkii xadho hoos bay uga dhacday xitaa arag ay aragto iyadoo marasa ma aragno marka dawladda Soomaaliland waxaan leenahay wax qabadkiina waa ka gaabiseen wasaaraddiinu beeruhu ma aha mid shaqaysa ha shaqayso ummadda waxa u qabto xoolo milyan maanta anagu dadka aad arkayso xoolo ma leh bariga boorama iyo galbeedka boorama midna xoolo ma leh saciid dibi bay leeyihin hantidooda ugu weyn waa beertaas horumar ma hesho meel xoolo ku dhaqmaan maaha kuma dhaqmi karaan kii ku dhaqaano isaga ku cadibanba marka waxaan leenahay dawladduna way ka gaabisay wax qabadkeedii meesha waa malin MCH-ka hay'ado badan baa inta ballan qaadeen haddana iska baxa codayn waxa u yimaada xildhibaano yaacaya ayaa yimaada xildhibaanadaasi maalinta loo codeeyo ay iska tagaan maalintaasi codkii markuu helo qof tanaystaa oo dadkan ku soo shaqo tagi warka dadkii inay wadheen iyo inay xanuunsadeen iyo inay wax heleen dib uma soo eego xagga dawladdana wuxuu idhaahdaa deegaankayga ay soo saaraya activity-ga uu doonayo ma aha mid aragti dadka madaxooga inuu tirsado weeyaan uu ilaaliyo ninka dawladda ku jira ee ka soo jeeda gobolka degmada jaarahorto waa inuu soo eega waa inuu activity-giisa wax kula qabto waa inuu horumar sameeyo halkii uu ka abaabuli lahaa inuu MCH-ka maanta soo koobi lahaa ama caafimaad bisha casad uu tago oo ka codsan lahaa dawooyin loo gaarsiiyo ama gargaar wax loogu qabto maalinta codaynta ayuu iskaga amabaxa markuu danaystaas ka noqdana uu iska tagaa waxaa jirta wasaaradda beeruhu ma soo kordhiso waxqabad biyo xidheena dad ajaaniba ayaa odayaashu ka codaysta oo shaqo tag ah
dad deegaanka u dhashin waa joogaan oo ka shaqeeya seeriska imika caleemahu waxba kama jiraan abaar baa ku dhacday dadku waa ka hayaameen inta dambe ay roobku darro ay ku dhufteen dibitana waxa dhacay in biyo qaadeenkii weynaa ee dooxa ay ka cabi jireen ballaydii oo go'ay dawladuna ay laamida soo xaysiiso oo mar kasta madaxweynuhu xitaa baki inta iska qabtay aan waxba deegaanka soo marin indhayna uu yiraahdo waxaan soo maray deegaanka awdal ayaan soo maray oo lug soo maray taasina wax jira ma deegaankan baki saaraha horato ay iska taageersan dadkaasi ma helaan gargaar loo soo gaarsiyo ama gaari soo gaarsiyo oo caafimaadka kala shaqeynaya oo soo gaarsiyo ambalaas oo soo gaarsiyo goobtii caafimaad ugu dhow waxa lagu soo qaadaa awr dadkii oo xanuunsanaya laga yaabo qofkii inuu iskaba serious u dhintaba dawla aanad waxbarashada beeraha iyo maxaa ku dhacday dhanka xoolaha marka kulli maxaa ku dhacay wax way kala horeeyaan baahidii ugu darneyd ee aanu priority-ga noo ahayd waxay dhanka caafimaadkii waxaanu meesha ku aragnay horta MCH deegaankan ka dhisan oo shaqeynaya maxaa ku dhacday ma jiro runtii MCH kaasi in la hawlgeliyo ayaan maxaa ku dhacday qiimeyntii koowaad noo soo baxday waxaan rajaynaynaa MCH kaasi kulli baahiyihiisii iyo sidii loo hawlgelin lahaa in falowgeeda la qabto baahida koowaad uu MCH kaasi qaba horta waxay wax dhismaa male dhisme uu u baahan yahay waa baahida koowaad baahida labaad waxa weeye maxaa ku dhacday agab inuu helo maxaa ku dhacday MCH kii baahida saddexaad waa xirfadlayaal caafimaad inuu helo inta joogta iyo in lagu soo kordhiyo baahida afraad waxa weeye xirfadlayaashaasi inay mishaar helaan runtii waxa weeye maxaa ku dhacday dhismahaasi haddaba waxaan u sheegayaa anigoo si gaara ula hadlaya jooga ka soo jeeda deegaankan ama qolqol jooga ka soo jeeda kow waxa weeye cabasho uun lagu jiri maayo waxa la noo qabto uun looma baahna iyo in la ooyo adeer waxa weeye maanta innagay ina saaran tahay horta dhismihii inaan samayno dhismahaasi haddii la helo wixii kalena waa la heli karaa dhismihii waxa weeye 3 qol oo MCH horta in laga dhiso waa laga maarmaan innaga inayna saaran tahay wixii kale ama hay'ada la raadsado ama dawladda halala waxa weeye halala raadsado laakiin MCH ka dhismihiisa inaan bilowno innaga ina saaran tahay qurbajoog fara badan oo deegaankan ka soo jeeda jira qurbajoogaasi waxaan u sheegayaa iskuulka maanta aan taaganahay waxa weeye waa iskuulkii deegaankan Jaaraha Horoto waxa la dhisay 1962 iska wuxuu qabsaa lagu dhisay inagoo 2015 taagan miyaan waay karnaa inaan 3 qol maxaa ku dhacday dhisano oo MCH waxaba ku filan intii iskuulkaasi ka baxday 62 kila dhisay wixii ka dambeeyay ka qala jabsaaba ku filan iyadoo cid kale loo raadsan de waxa weey inagoo intii waxa weey maxaa ku dhacday meelo kale ka baxday iyo intii iskuulka qala jabsay bay isku tagayeen dadka deegaanka 3 qol ee MCH in la dhiso waa laga maarmaan ujeeda Jaaraha Horoto qaarkood dawladda ku jiraan xildhibaano de waxa weey maalinta cod looga baahan yahay uun hadii dadkan loo yimaado kumanaan kuno cod inta laga qaado waxa weey lagu soo baxo haddana aan dib loo xasuusanin taasi waxa weey maxaa ku dhacday idinkana waxay nii tahay damiir xumo oo inniimo wanaagsana deegaankana waxay u tahay dad la'aan marka waxa weey dad la'aan ma jirto waa la in doortay haddaad tiin maxaa ku dhacday xildhibaano haddaad tiin mas'uuliyiin kale oo wasiiro ah haddaad tiin mas'uuliyiin agaasimo waaxidya de waxa weey ilaahay idinku maxaa ku dhacday in weydiinaya dadkan oo xilkii u haya maalintaad codkan ka doonaysaan waxbaan qabanaynaa baad leedahay ilaahayna wuxuu quraankiisa ku leeyahay waxaydaan sameeyeen maxaad u oranaysaa de waxa way aayada quraanka yeeyneen qabanine si degdeg ah ummadan ugu soo jawaabo dadkan ku soo noqda oo baahida jirta indhaha iska qabanina waad arkaysaan hadii naga qarsoonaydaan awal u iimaneyn maxamed cumar jaray shabakada caalamiga ee Boroma News deegaanka Jaaraha Horote degmada Dila